intaan shirkadda DP World la wareegin dekedda Berbera muxuu ahaa ballanqaadkii xukuumadda Somaliland aan dib adin xasuusiyo 2 sannadood ka hor barnaamij aanu ka diyaarinay heshiiskan xilligaasi wixii dadku wax iska weydiinayeen iyo aragtiyihii ay aaminsanaayeen oo ay qayb ka ahayd in dekedoodii lala yeelanayo iyadoon waxba lagu darin lana dayactirin barnaamijkaasi xilliga waxaan aragtiyaha dadka ka dhex guuxayay wax ka weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Sacad Cali Shire 2 sano ka hor aan dib u celiyo haddaba waxyaabaha heshiiskan ku wajahan ee shacabka Somaliland xukuumadda uga fadhiyaan inay ka qanciso ayaa waxa qayb ka ah dawladda Somaliland iyo Imaaraadku ma waxa heshiiska ku wada galeen wada yeelashada dekedda haatan dhisan oo dib u habeyn lagu sameeyay mise deked cusub ayaa qaranka u soo korodhay oo dawladda Imaaraadku dhisaysa wasiirada yani waa wax qofka qalbigiisa ku adag inay gasho inaad tiraahdo waxaan haystabaan cid kale la qaybsanaya iyadan waxba layga faa'iiday macquul ma markaan heshiis aynu gallo insha Allah shaqada ugu horeysa ay shirkadu qabanaysaa waxa weeye in deked cusub dhisto deked cusub markay dhamaato baa tii hore jirtayna la dayactiraya lana qalabeynaya marka wixii baa inta waliba laynoo hagaajo baa waxna laynoogu daraya waxaa laynoogu daray in ka wada faa'iideynaa labadeena isla sanadkaasi 2016 oo ahaa xilligii heshiiskaas baarlamaanka la horgeeyay sababihii baarlamaanku ku ansixiyeen ee dabcan intii codaysaba ay u arkayeen inuu yahay heshiis qaranka dan u ah waxaa qayb ka ahaa dhismaha deked dhererkeedu dhan yahay 800 mitir taasi oo kolka hore la dhisayo intaan DP World dekedda la wareegin 400 mitir oo kamid ah iyo barxad 1 kiiloomitir iyo saayida oo loogu talagalay konteenarada sidoo kale dayactirka dekedii hore intaasiba waxay ahaayeen hor intaan DP World la wareegin dekedda inay fulaan waxa taasi sii dheereed oo baarlamaanka xukuumaddu ka hor cadaysay xilligaasi faa'iidooyin Somaliland ugu jira heshiiskaasi oo qayb ka ahaayeen iyana ka taageerida Somaliland dawladda Imaaraadku ay ka taageerayso dhinacyada tamarta beeraha dalxiiska iyo shaqaalaha taasoo dhalinyarada dhinaca shaqada Somaliland kumanaan kamid loo shaqayn doono suuqyada shaqada ee Imaaraadka sidoo kale dhinacyada gaadiidka iyo warshadaha iyo waliba baasaboorka Somaliland oo dadkaas Imaaraadka loo shaqayn doona ay ku tagi doonaan aan baliyana dib adin xasuusiyo mashruucu wuxuu ka kooban yahay deked cusub oo 800 mitir ah imanka dekedeenu waa 650 mitir markuu mashruucaas dhamaado ee uu dhamaystirmo wuxuu noqon waxa dekedu ilaakaan doontaa ama noqon doontaa 1 kiiloomitir iyo 450 mitir bay noqon doontaa waxa kale mashruuca ka mid ah 50 hektar oo ah farxadda la dhigo alaabta 50 hektar waxaan ku qiyaas qaadan karnaa waxa weeye waa dhul dhererkiisu yahay 1 kiiloomitir balliciisuna yahay nus kiiloomitir 1 kiiloomitir iyo nus kiiloomitir ayaa la dhisi doonaa oo si loo dhigo alaabta waxaa mashruuca ka mid ah in dekedii hore la dayactiro waxaa ku jira in la qalabeeyo qalabeynta dayactirkaas markay dhamaadaan qaybta hore markay dhamaato ee 400 mitir konteenarada laga dejin karo lagana rari karo dekedda aan bay handal garan kartaa Ingiriisiga marka lagu cabiro waxay noqon doontaa 680,000 oo konteenar marka 800 mitir dhamaadana si aan horu sheegay waxay noqon doonaan 1,250,000 konteenar sanadkii waxa kaloo mashruuca ku jira free zone waxa kaloo mashruuca ku jira heshiis guud amba la maalgelin doono heshiiska guud wuxuu oranayaa waxa laynaga taageeri doonaa dhinaca tamarta dhinaca beeraha dhinaca dalxiiska dhinaca shaqaalaha dhinaca gaadiidka iyo dhinaca warshadaha arrinka shaqaaluhu dan sida dul taago waa in aad iyo aad muhiim ah haddaad maanta Dubai tagto hudheelada markaad gasho waxa hudheelada ka buuxo ka shaqeynaya
dadka yimi Kenya, dadka yimi Uganda, kuwa Nigeria ka yimi, kuwa Philippines ka yimi, kuwa Sri Lanka ka yimi. waxay naga ballan qaadeen in suuqa shaqaalaha ay noo furi doonaan oo dadku ku dhoofi doonaan baasaboorkeena. dhallinyaradeenna shaqada camalka boqolkiiba 75 halkaa fursad baa inooga furan. sababaha tuhunka madmadowga iyo muhmalka maanta geliya heshiiskaasi ayaa ah intaasi oo ballanqaadi ahaa ee heshiiskan qaybta ka ahaa oo wada buray ilaa iyo maantana aanay waxba ka fulinin. ballamadaasi buray ee heshiiskaasi oo mucaarad iyo muxaafidba ay wada saluugsan yihiin maanta intaasi kuma eekee iyana aan dib adiin xasuusiya heshiiskaasi baarlamanka la horgeeyey oo ay qayb ka ahayd shirkad Somaliland iyo DP World wada yeelan doonaan oo la samaynayo intaan DP World dekada la wareegin. shirkadaasina waxay kaalmaha hore kaga jirtaa waxa shacabku baafinayo asxaabta siyaasaduna ay wax iska weydiinayaan. halka ay u dhimatay ee iyana saluuga salka u ahi intaasiba marka laga yimaado waa saamiga la bixiyay iyadoo sharci la waafajiyay aanu jirin bal iyana wixii baarlamanka laga hor akhriyay ee ay gacanta u taageen aan dib adinku celiyo. shaqo waxa u horeysa 400 ee mitir ee dekada cusub fayziiroogu waxa weeye marka shaqada la dhameeyo ee dekada cusub new container terminalka la bilaabo ee ay ka soo degaan waxaynu u baahanay cusub ee ay badeecadihii iyo wax waliba ka yimaadaan ee ay ku soo xidhaan maraakiib ay Somaliland maanta idan oo ka qaran weyn dunida maraakiibta ka gooshta way isbedeshay soddonkii sano u dambeeyay maraakiibtu waa waaweynadeen dhiibka biyaha looga baahayay waa mid ka weyn ayaa markaa loo soo noqon doona dekedeennii hore in reinforcement waxa afka qalaad lagu yiraahdo lagu sameeyo la adkeeyo waxa aynu wadaagaynaa waxaynu wadaagaynaa shirkadaynu wada samaysanayna inaga dhaxaysa labadeena qolo. shirkadda inaga dhaxaysa ayaa dekedeena hadda jirta iyo ta cusub oo maamuli doonta. shirkadda cusub ee inaga dhaxaysa sharciga Somaliland xarunta fadhigeedu Somaliland buu noqonayaa. qawaaniinta Somaliland bay ku shaqaynaysaa. waxaynu inagu leenahay shirkadaas aan 5% iyaguna waxay leeyihiin 5%. saamiga inagu toos cidaynu shirkadda aynu wax wada leenahay waa DP World. muddada hore sida heshiiska ku qoran cid kuma soo diiri karto saamigeeda. hadday qola damacdo inay saami iibiso labadeena dhinac shirkadda wadaagay waxa right to buy gale qolada kale. hadday Somaliland damacdo inay 35 wax ka iibiso waxa offerka koowaad inay wax ka iibiso DP World iyaguna waa sax soo kale. cid saddexaad oo saami halka ku lihi mudane gudoomiye iyo mudanayaa kuma jirto. dekad lama dhisin lama dayactirin tamartii beerihii warshadihii iyo dalxiiskiiba 2 sano kadib xataa lama hadal hayo. suuqyadii shaqada ee dalka Imaaraadka iska daa 5,000 oo dhalinyaro ah xataa hal qof hotel Dubai ku yaal looma shaqo geyn. ha yeeshee ka daro dibi dhal baa iyana meesha taal oon la garanaynin jiho loo kaxeeyo iyo meel madaxa loo saaro. waana arrinta saamiga aan sharciga marin ee 19% Ethiopia la siiyay. Abdirsaq Teera, Hargeysa.